runtii dee abaaraha horta mas-uuliyadda waa la kala leeyahay dalkani maanta waa nicmaysan yahay miisaaniyaddeenu waa 300 milyan maanta maxaynu u baahnay baaraka allahu fiikum riiga ugu fog maanta somalilan gudaheeda oo $120,000 qaarkoodna waa $30,000 boqol riig haddaynu maanta baas garayno subxaan allah oo aynu meel walba ku taagno iyo imanka urdun waddamada muslimiinta waa dadka ugu horumarsan biyahoodu 15 cishay mar soo dhaca urdun waayo israa'iil baa badankeedii haysata oo berigii heshiiskii Camp David uu galay ayaa runtii waxyaalihii saadaatu sameeyay muslimiinta uu ku sameeyay bay ka mid ah oo maanta dee muslimiintu ay ogaadeen 89kii anigoo sanca maraya ayaa warqad baan jilliduun baa galatay aan arkay subxaan allah markaa laba ninoo nin Faransiis iyo mid Georgiis oo markaasi Yamaniya ayaa qoray 2030 xabad biyo ma taala Yaman ayaa ku qoran halkee looga helayaa biyo waxa looga helayaa waqooyiga Soomaaliya oo buxayratu biyaha ودراسة more than $100 million lagu bixiyay Yemen oo 70 milyan noqon doonto 2030 Somaliland baa biyo laga siinay marka iyagu may rumaysnay Somaliland oo shimaal Soomaaliya jilidii maalintii waa soo qaaday 400 oo bog baan ka sawiray dad badan oo runtii dadkeena aqoonta lagu tuhumayaa ayaan barigii tusay dhulkani adeer waa buxayratu miyah ilaahay meeshuu inagu abuuray dunidana 2030 iyo wixii ka dambeeya 10 litir ee batroolka ayay litirka biyaha isku mid noqonay wadagaalkii biyaha waxaynu u baahannahay caqligii dadkeena waraabin lahaa oo inaynu waxaan dad yar baynu nahay Somaliland marka la eego gebigeedu waa dad yar bay one family baynu inaynu ka baxno waxaan kale inuu ku mashquulsanahay aynu danteena u dhaqaaqno iyo dadkeena inaynu waraabino mas'uuliyadana lama wada laha kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati xukuumadda maanta xal looga fadhiyo ودكتي نو دورشوينكا maxaa inaga baxay doorashooyinka kama hadlayo inta formalka la yaqaan kama hadlayo lacagta qasnada dawladda laga saaro kama hadlayo kuwan aynu hoos taagan la ila qaran bay bixiyaan ee maanta dalka inagu haystay in la qaybinaya ee qof walba wax kula hadla waxaan ka hadlayaa sourceskeena inagu aynu leenahay waxaynu awoodeynaa maanta 5,000 10,000 oo booyadood inaynu 48 saacadood ku kaano haddii caqliga jiro haddii xukuumaddu u soo jeedo way haddii culimadu u soo jeedo way haddii tujaartu u soo jeedo way haddii intellectualiskeenu u soo jeedo way riigag baynu qodi karaynaa waxaa la xili karayaa magalatay biyaheena ma ogeeda qadaafkii wallah bal imika dee daraasada internetkay ku jirtaa webigii sinaaciga ayuu sameeyey qadaaf iyo inta uu ka geeyey biyo subxaan allah marka baaraka allahu fiikum Somaliland oo dhan biyaa ku jira way kala fog yihiin meelaha qaarkoodna waa bad laakiin meelaan biyo lahayn ma jirto laakiin dhiibkun baa kala fog geerjireenii hore runtii maalin dhaweyto meel halkan aan tagay oo runtii galbeedka Hargeysa 7 kilomitir oo jirta Arabsiya weli ma arag 4,000 oo neef oo geela oo meel taagan oo biyo sugaya subxaan allah
sideed ceel baa laga dhagax dhigay geela oo 200 oo laba inani wadaan ayaa u hooyan jiray 48 saacadood oo dhulkuna uu wada xidhay oo wada beero waxaa ku baxay 8 ceel waxaa ku baxay 12,800 shan cisho kadib baanu soo eegno geelii cabaadkiisa iyo qayladiisa iyo subxaanallah dhibaatada meeshaa taalla aad yaabaysay geel soo gaadhaya ma jiro marka walaal waxaan uga jeedaa baarakallahu fiikum waa tii agaasimaha xusuusiyey dadkeenna ha loo gurmado laakiin gurmadka taladaa ka horeyso oo waxaanaynu ku mashquulsanay aa ogtihiin ee qofna aan ka qarsoonayn maanta intaynu meel iska yaro dhiganno aynu si seriousa xukuumadduna ha u gasho oo iyagu ha bilaabaan nin walba jeebkiisa waa la yaqaana madaxweynaha jeebkiisa waa la yaqaana political fundkiisa la yaqaana inaguna waynu isu wada garanaynaa xataa sakada muqadaman 2.5% baa qof walba lagu leeyahay markay hantidiisu gaadho $6,800 85 gram nin walba waxa la leeyahay sanadka soo qadim yacni wax ka yar haddaynu daacad ka noqonno oo dee sidiisa loo raaco oo dadku ku kalsoon yahay la ururiyo si lacagtaasi ay dee wadadeedii u hesho ummaddana ma garatay loo dhexaysiiyo waxaynu ururin karaynaa wadinkii ogaa guruntakii berigii koonfuraynu ka samaynay culimmadii ka hadashay baan ka mid ahaa islaamku sakada wuxuu ku bixiyaa 84 kilomitr degmada islaamku waa 84 kilomitr square berbera sidaasaad uga kacaysaa 84 kilomitr 84 kilomitr 84 intaasi sakadeeda ayay berbera bixinaysaa ma gudbin karto ilaa intaasi ay marka hore marka maanta marka innaga la eego dhaqaalaheena guud ahaan ganacsatada ka hadlaya iyo xukuumaddu ay isu tagaan si daacada loo galo arrinta muddo yar baynu ummaddeena ku waraabin karayna baarakallahu fiikum dembigeenna ilaahay ha dhaafo kii waalidkeenna ilaahay ha dhaafo dariiqa jannadana ilaahay kuwii ku kulmay ilaahay naga dhigo